geesiyaasha waddankan u soo halgamay hal iyo laba ka sheeg. waxa weeye Sayd Maxamed Cabdilla Xasan Cawtaako waa inta kala maqan Cawtaako maxay qaban jirtay funny way Harun aqoon hal qof oo waddankan geesiyaasha u soo halgamay kamid magaciisa sheeg waa Gandhi Gandhi ها Gandhi u soo halgamay Soomaaliya aqoon Gandhi hindi oo ahayd xorriyadda Soomaaliya hindi aya ha okay saashka la ku diin waxa weeye waxaan noo sheegtay geesiyaasha waddankan u soo halgamay laba kamid ah waddankeena Soomaaliya waddanka isaga baashaartay dad baa u soo dhintay nafsadooda u soo waayay Sayd Cabdilla Xasan iyo Hanmi iyo aniga adiga maxaa qabay waddankan maxaa soo qabay wax badan ay maxaa kamid okay hal qof oo dadka xornimada waddankan u soo dagaalamay sheeg magaciisa dadka waddankan xornimada ma garanaysa hal qof sax maxamed barre madaxweyne ah oo ma soo dagaalamay xornimada waddankan ma garanayso ya haykal geesiyaasha waddankan u soo halgamay laba kamid ah sheeg mid ka koowaad waa Aabasiyaad Barre haye Sayd Maxamed Cabdilla Xasan labada weyn siyaad bar madaxweyne ahaayeen ma asaga dadka laftarkiisa halgan badan iyo wuxuu u soo muujiyay dadaal maanta ee Soomaaliya ee tahay taariikhda kaliya ee la xuso way saashu ugu dameysa waxa sheegtaan laba qof oo waddankan u soo halgamay Maxamed Siyaad Barre iyo Cabdilla Ismiya مايد مع محاسب بن عبد العزيز وحرنمدي باشا قميستي خلاص دغالay misti dadka waddankeena xornimada u keenay laba qof oo SYL ka tirsan ama hadi dadka waddankeena u soo halgamay kamid ah sheeg taas waa adagtahay ya islaam waa adagtahay taas ya malaysa waa Gandhi iyo Nelson Mandela waan Gandhi ninta Mandela Gandhi hindi oo ahayd xorriyadda Soomaaliya hindi aya ha Nelson Mandela waxaad noo sheegaysaa hal qof ama laba qof oo kamid ah dadka geesiyaasha waddankan u soo dagaalamay Sayd Maxamed haye iyo garanayo absalaamna